sanadihii aynu ka soo gudubnay waxaa sii xoogaysanayay dareenka ka jira guud ahaanba wadamada reer galbeedka ee lagu fogeynayay dadka muslimiinta waxaana arrimahaasi keenay ismaandhaaf loo arko inuu u dhaxeeyo wadamada reer galbeedka iyo qaybo ka mida dadka muslimiinta waxaa dhinaca kalena batay weerarada argagixisada ee ay geysanayaan qaar ka mida dadka muslimiinta ee ku nool isla wadamadaasi haddaba dalka Mareykanka gaar ahaan waxa dareenkaasi uu sii xoogaystay intii talada wadankan ay la wareegtay dawladda madaxda uu ka yahay madaxweyne Trump waxa haddaba barnaamijkan aanu isku weydiinaynaa kaalinta muslimiintu ay kaga jiraan bulshada dalka Mareykanka iyo awoodda dhaqaale gaar ahaan ay leeyihiin iyo saameynta dhinaca siyaasadda iyo waxyaabaha kale la midka arrimahaasi iyo arrimo kaleba haddaba waxaan ka wareysanayaa Mustafa Maxamed oo ku magac dheer Martin oo aqoonyahan ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka Mustafa ku soo dhawow telefishinka Universal waad mahadsantahay Cabdisalaam arrimaha aan hordhaca barnaamijka ku sheegay haddii aynu kala qaadno horta tira ahaan muslimiintu intee lag ka noqonayaan bulshada dalka Mareykanka waxay ka noqonayaan tira ahaan muslimiinta ku nool dalka Mareykanka qiyaastii 7 milyan oo qof waxa kaloo la og yahay in numberkaasi uu yahay number aad u yar markii la xaqiijiyay laakiin haddii la isku wada kiciyo dhaatooyin badan ama xogag badan oo la soo ururiyay waxa laga yaabaa inay gaarayaan ilaa 10 milyan oo qof muslimiinta Mareykanka dadkaasi markaa dabcan waxay u badan yihiin Soomaha dadka ka soo haajiray ama ka soo jeeda wadamada kale muslimiinta waa qayb ka mid ah muslimiinta Mareykanka ku degan dadkaasi laakiin Cabdisalaam waxa weeyaan muslimiinta Mareykanka waxay u badan yihiin horta dadka la yiraahdo African Americanka boqolkiiba 30 waa dadka la yiraahdo African Americanka ama dadka madow oo iyagu taariikh ahaan deganaa wadankan oo ilaa slavery-gii deganaa ayaa ah dadka ugu badan ilaa waqtigii gumaysiga ayaa ah dadka ugu badan ee ah muslimiinta waxa soo raaca dad kale oo iyagu 1965 yimi oo iyagu ka yimi wadamada Carabta laakiin muhaajiriinta dambe qaxootiga waa dadkii ugu dambeeyay muslimka ah marka yimi Mareykanka marka muslimku wuxuu isugu jiraa qoomiyado badan xilliyo kala jaadana way yimaadeen waana dad ka kala yimi Europe Africa Asia waana dad imanaya Mareykanka ilaa 200 sanadood ee ugu dambeeyay mararka qaarkood waxa la oran karaa dadka muslimiinka waa dadkii ugu horeeyay la bilaabay Amerikaba jiritaankeeda markii laga soo qaaday dalalka sida qaar Mauritania iyo magaalada wadamada Afrikaanka marka muslimku waa dad taariikh ku leh dalka Mareykanka ilaa bilowgii ugu horeeyay ee Mareykanka unkankiisa marka taariikhda muslimiinta iyo Mareykanku waa taariikh aad iyo aad u dheer waxa la tilmaamay in masaajidkii ugu horeeyay Mareykan laga dhiso in ka badan 100 sanadood ka hor la dhisay masaajidkaasi goorma la dhisay xagee buu ku yaalaa masaajidka waxa laga dhisay gobolka la yiraahdo Iowa magaalada la yiraahdo Cedar ayaa laga dhisay waa masaajidkii ugu horeeyay ee muslimiintu dhisatay waxaana loogu magac daray Mother of All Mosque waana masaajid aad iyo aad u qaali ah oo taariikhi ah waxyaabaha mucjisada leh masaajidkaasi wuxuu leeyahay hadda tagto in ka yar 2 qol guryaheena caadiga markaad eegto waa masaajid yar laakiin taariikhdiisu aad iyo aad u weentay waana masaajidkii ugu horeeyay ee abuuray ummadii muslimiinta ahayd ee gobolka ku farcantay oo imika aad iyo aad u badan oo u xoogaysatay waana masaajid ku muhiim ah taariikhda muslimiinta ee Mareykanka dareenkan ismaandhaafka ee u dhaxeeya sidaan sheegay qaybo fara badan oo ka mid ah dadka muslimiinta iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka hormuud u yahay Mareykanku goormuu bilaabmay baad oran leed markaa Mustafa horta waa su'aal wanaagsan dareenka taariikhdiisu way dheertay maahana dareen cusub laakiin waxa laga dheehan karaa September 11 markii ay dhacday 1991 ee la duqeeyay New York Twin Towers ki daari ugu weynaa diyaaradaha lagu dhuftay halka waxa ka bilaabmay dareen muslimiinta lagu nacayo laakiin waxa dareen laftigiisa u baahan tahay in historygiisa la eego dareenkaas markii uu dhacay madaxweynihii ugu horeeyay Bush uu hadlay khudbadii ugu horeeyay bixiyay wuxuu ka bixiyay halkii oo ka dhacay qaraxaasi wuxuuna u sheegay ummadda Mareykanka inuu u yahay madaxweyne Mareykan oo dhan marka lagu daro dadka muslimiintuna aan ahayn dad si gaar ah loogu sooci karo qaraxa noocana
muhiimna ay tahay haddii la ilaalinayo maraykan iyo wadajirkiisa iyo xorriyaddiisa in la ilaaliyo muslimada iyo dadka halkan degan markaa dareenku wuu jiray wuuna kobcaa wuuna isbedelaa markaa dareenkaas horta xilligaas ayuu bilaabmay inkastoo dareenkaa lamidi uu horo maraykanka u soo maray oo aanay ummadda soomaalida ogeyn waxaa jira Pearl Harbor berigii Nagasaki iyo Hiroshima ay duqeeyeen dadka Jabaanka dareenkan oo kale oo isaguna ka xoog weynaa ayaa maraykan ka dhacay oo isaguna dhacay in la ururiyo dadkii Aasiyaadka ahaa ee California ilaa deganaa Texas la ururiyo kaam lagu guray markaa dareenkaasna kaasoo mid lamid ah ayuu ahaa markaa dareenmada maraykanku way badan yihiin waana isbedelaan laakiin kaas dareenka muslimku berigaas ayuu inaga nagu bilaabmay mustafa haddaan su-aal kale arrintaa kaasii weydiiyo ma sax baa in la yidhaahdo siday kuugu muuqato markii midowgii soviet uu meesha ka baxay ayaa caalamkii waxaa loo baahday awood kale oo tareer galbeedka ama maraykanka ka hortagta dabadeedna markaasay isku soo baxsadeen muslimiinta iyo reer galbeedko maraykanku hormuud uu ka yahay sida dad fara badan ay qabaan aad iyo aad waa qodob ka mid ah markii Cold War-ku dhamaaday in ma garanaysa opposition party amba ka hortag xagga quwadda maraykanka la helo laakiin taariikho badan amba dhacdooyin badan oo laftigayga aan soo joogay issue-ga maanta jira ee adduunka fundamental religionska amba colaadahan diinaha abuuraya waa issue of consumerism waa issue of iibsi amba xaalad amba waxa weeyaan baacimishiradan waaweyn adduunka furmay iyo baahiyadan loo qabo inay dadku wax kala iibsadaan ayaa wuxuu had iyo jeer keenay inuu diintii geliyo dhaawac markaad eegto technology-ga kobcaya iyo dadkii alaab gadanaya iyo kobcitaanka maraykanka iyo suuqyadii ayaa waxa sii go'aya amba sii tafir go'aya waxyaabihii ummaddu ay caabudi jirtay amba ay u lahayd dhaqan aasaas marka runtii haddaad fundamentaliska hoose eegto maaha diine iswajahaya waxa weeyaan technology-ga xawliga ku socda iyo dareenkii ummadda sii go'aya iyo consumerismkii iibsiga adduunka oo iyaguna degdeg u badanaya ayaa wuxuu keenayaa fundamentalkii dareenkii ummadda inuu ka yareeyo society-ga maraykankuna waxyaabo hor kacaya waa iibka adduunka technology-ga adduunka marka runtii diinays haya maahay waxa weeye waa technological improvement iyo system kale weeyaan waxa meesha ka jira waddankan maraykanka markaad si gaara u eegto warbaahinta oo kale kaalin intee leeg bay ka qaadataa in la abuuro sawir inta badan la sheegay inuu qaldanyaho muslimiinta ay ka bixiyaan horta mediaha communicationku waa qayb dhan oo ka muhiima dee warbaahinta adduunka haddii war la sheegayo haddii wax la iibinayo laakiin mediahu waa qayb ka mid ah in propaganda laga suurtogeliyo adduunka gaar ahaan wadamada muslimka laakiin waxay ku xidhan tahay cabdisalaan oo haddan waddankan wuxuu qaatay xorriyadda mediahuna way badan yihiin muslimiintu media gaaray daawataa dadka conservative-ka media gaaray daawadaan dadka Americanka reer guuraagi waxay daawadaan media gaara marka waxay ku xidhantahay media kasta isku si wax uma sheegto si gaarana wax u sheegtaa waxaana hadii jira tixgelinaysa dadkeeda iyada ku xidhan marka muslimiinta mediaheeda markii anagu aan eegnay inta badan waxay u badan yihiin wixii la oran jiray liberal media haday noqoto CNBC NBC iyo CNN iyo magaranaysa public radio waxa weeye hay'adaha warbaahinta siyaasadahoodu ay qabow yihiin ama aanay xaq jirka ahayn haddana ka soo horjeeda wixii la oran jiray ultra conservative kuwa midka ah adag amba conservative-ka maraykankuna wuxuu u badan yahay dad iyaguna magaranaysa fundamentalist amba fundamentalist aan oranay dad ku dhagan maraykanimada iyo civil liberty-ga iyo u dagaalankii abuuritaankii maraykanka kicintii Britishka taxation-ka dawladdu inaanay xoogaysan marka waxyaabahaas oo dhan ayaa had iyo jeer qaybta muslimiinta ku xidhan iyana ka soo horjeeda marka media waxa hagaya had iyo jeer qoladii ay markaa ku xidhan tahay ayaa hagaysa marka ma la oran karaa maadaama sida aad sheegtay warbaahintii ama la daawanayay ama la dhageysanayay loogu kala duwan yahay bulshadii maraykanku iskama war haysaba bulshada maraykanku runtii iskama war hayso waxyaabaha mucjisada maraykan markaad eegto lama oga waxa degan maraykan 16 milyan oo qof oo waxna akhriyo waxna qorin waxa jira dad aad iyo aad u badan maanta hadaad weydiiso madaxweynaha maraykanka haysta aan ogeynba inuu Trump joogo marka maraykanku inta badan iskama war hayo education ahaan iskama war hayo gobol ahaan iskama war hayo degan ahaan iskama war hayo maraykanku waa dad kala wada jaada maraykanku waxa soo galaysa ilaa Hawaii ilaa Puerto Rico ilaa Islands aan wadankaba ku ool qaaradanba ku dhagsanayn ayaa maraykanka kamid ah marka isku wada aragti maaha laakiin wuxuu ka sameeyahay maraykanku waxa weeyaan qof walba halkiisu ku yahay American haddaad muslim tahay maraykan baa tahay haddaad Spanish tahay maraykan baa tahay haddaad Asian tahay maraykan baa tahay haddaad black tahay maraykan baa tahay laakiin marka
qof walba khidadiisa iyo experience-kiisa ayaa halkiisa kaga dhigaysa Mareykan marka waa meel aad u weyn oo iska war haynin weey dadka muslimiinta aad ku sheegtay inay yihiin 10 milyan ee qof waqtigan xaadirka Mustafa saameyn intee leg bay ku leeyihiin bulshada Mareykanka hadday noqoto dhinaca siyaasadda hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha hadday noqoto dhinaca xirfadaha powerka waxaynu kala qaadaynaa Cabdisalaam oo dhowr arrimood mid waa mid siyaasadeed midna waa mid dhaqaale midna waa mid ummadda dhexdeeda ay la noolaansho kula nool yihiin midna waxa weeyaan ta Mareykanka ugu dan leeyahay wixii loo jiray global economy sidaba muslimiinta Mareykanka dani power kale u siin kartaa dalka Mareykanka iyagoo gaaraya wadamadii kale muslimka arrintaas waa arrin aad iyo aad u ballaaran waxaan ku horeynayaa ta dhaqaalaha purchasing powerka amba iibkooda guud ummadda muslimiinta waxa lagu qiyaasay 550 bilyan oo dollar earning income-ka lacagta shaqaalahaan u shaqeystaan sanadkii waa 200 oo bilyan oo dollar dadka Mareykanka waxa weeyaan muslimiintii waa dadka ugu tacliinta badan markay noqoto MBS soo 40% way dadka muslimiinta marka la barbar dhigay la barbar dhigaya marka la leeyahay waa dadka ugu waxbarashada wanaagsan waxa loo barbar dhigaya dadka cadaanka waa 20% wixii ka baxa jaamacadaha dadka muslimiinta guud ahaan marka la isku kiciyana waa 40% way waa dadka ugu tacliinta badan leh way dadka muslimiinta waa dadka ugu dhaqaatiirta badan leh Mareykanka waa dadka ugu influential ka baran xagga noqoto technology-ga amba IT-ga magaalooyinka California oo kale sida Palo Alto iyo Silicon Valley dadka ugu badan 20% waa muslimiin dadka technology-ga gacanta ku haya ee waxaas oo Mareykanka soo saarayo gacanta ku haya dhaqaatiirta ugu waaweyn marka haddii aad eegto xaggii suuqa dadka Mareykanka aad iyo aad muslimiintii ayay uga dhisayeen xagga ciidamada hadda eegto 2% ayay noqonayaan dadka muslimiinta ee ku jira ciidanka ee u dagaalama dadka Mareykanka looyaradu waa sidoo kale marka waa dadka ugu tacliinta badan leh waana dadka ugu income ka sareeya dhaqaalaha dakhliga soo gala sanadkii waana dadka ugu influential ka badan leh marka noqoto muslimiinta adduunka oo dhan marka runtii guud ahaan muslimiinta wadankan waa dadka ugu caafimaadka badan waa dadka ugu dhaqaalaha badan waxay kale waliba sii dheeriyeen wixii la oran jiray kaydka xagga lacagta marka loo eego 2% dadkii marka loo eego Mareykanka retire garoobay waxa retire garoobay 220 milyan oo qof ayaa hawlgab noqday marka la eego dhaqaalaha haystaan qof ku dhamaanta 3-4 kun haysto oo Mareykanka degan inta badan ma jiro dadka kaydka muslimiinta marka la eego intaas waa laabkoodii waa dad guryahoodii leh waa dad aan criminal noqon iyagu marka waa dad dhinac kastaad ka eegto runtii dhisan laakiin quruxda ummadda muslimka ee degan halkan waxa weeye waa dad la oran karo American dream ka la sheegaba raaxada Mareykanka dadka ugu badan ku jira waa dadka muslimiinta weyn qofka muslimka ama ha ku dhasho Mareykan ama ha ku barbaaro ee maanta ku nool wadankan warwarka ugu weyn ee haysta maxaad ku tilmaamay familiyada haddaad eegto su'aalo badan baa halka hoos imanaya ta ugu badan waxa weeye cultural exposure sidee buu qofka muslimka u ilaalin karaa dhaqankiisii iyo diintiisii Mareykanku intaa kama soo horjeedo laakiin dadkii isbedelka ku imanaya qoyskii iyo reerkii iyagoo diinta iyo dhaqankoodii raba ayaa dib ku keeni kara dibkaasna kama iman karayo qofka muslimka iyo qofka Mareykanka wuxuu ka imanaya muslimka dhexdiisii generational gap qofkii da'da ahaa ee gaboobayay ee halkan isagu age-kii hore yimi iyo caruurtii kobcaysay ayaa had iyo jeer inta badan friction xagga muslimiinta ka dhex jira taasna ma aha labadii qof ayaan isafgaranayna waxa kamid ah luqadii baa kamid ah technology-kii rapid ku socda oo xaggii Facebook iyo Twitter ku ilmihii la qabsanayo generation-kii weynaa uu yar yahay sida uu isticmaal lahayn kaasa inta badan khatar ku haya xagga muslimiinta iyo luqadii oo ka sii go'aysa ilmihii Mareykanka marka issue-gaas ugu weyn oo qofka sida diintiisa loo ilaalin lahayo dhaqankiisa xagga muslimiinta laakiin xag kale oo barasharka oo haysta dadka muslimiinta oo kale ma jiro dhinaca siyaasadda markaynu eegno Mustafa waxa la tilmaamaa oo tusaale loo soo qaataa saameynta tusaale ahaan yuhuudda kale ay ku leeyihiin wadankan Mareykanka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalahaba muslimku maadaama sawirka aadka u wanaagsan aad ka bixisay haddana uma dhawaa la oran karaa soo maaha saameynta ay yuhuuddu leeyihiin Mareykanka horta waxaad inta badan marka la eegayo xaggaas labada group ee la isbarbar dhigayo waa inaan horta fahamna meelaha iska kaashadaan iyo meelaha aan iska kaashan karin runtii waxaan doonayaa inaan kuu sawiro horta Mareykanku waa multiple ethnic waa community waa qoomiyado isu yimi qoomiyadahaas marna way wada shaqeeyaan marna way kala shaqeeyaan marka waxa laga hadlayo consumer market multicultural consumer market marka laga hadlayo horta Isbaanishkii madowgii Carabtii Jewishkii intaa way ku jiraan wadankan waa inaanu fahanaa 2050 minority-ga dadka midabada kala leh
ayaa ka badnaanaya dadka kale cadaanka marka horta halkan waxa ka soo baxaya qoomiyado cusub oo isbedelaya intaana oo isbedelaysa su'aashaadi haddaan dib ugu soo noqdo marka la soo eego yuhuudda amba israa'iilka iyo dadka muslimiinta inta badan qodobka la raadinayo waa wixii la oran jiray civic engagement amba is-abaabulka xagga siyaasadda marka waynu haddana laba qodob oo kale sii fahna wixii la oran jiray judo christian oo ah biblical amba bibleka ummadda amba yuhuudda ay la timi tora waxay la timi iyadu wixii la oran jiray advocacy-ga inagoo nahna dacwa waxa weeye iyagu waa dhaqankooda ku dhisantahay xaggii kaniisadda iyo xaggii yuhuuddina way isaga dhowyiin marka waddankan waxay soo galeen iyagoon waddan lahayn oo muddo dheer bay joogeen dhowr boqol oo sannadood ayay joogeen marka xoog iyagu waxay saareen wixii la oran jiray siyaasadda waana dhisan yihiin 16 senatar ay leeyihiin congress-ka way ku badan yihiin laakiin muslimiintu laftigeedu taas kama yara oo abaabul badan ayay jiraan muslimiintu waxyaabihii iska hortaagay iyaga waxaa ka mid ah iyagu waxay leeyihiin laba iyo dee waxay ku leeyihiin dhowr iyo 50 waddan ayay ku leeyihiin adduunka muslimiintu marka influential badan wuxuu kaga socday iyaga wadamadoodii oo intii ay magaranaysaa wax tarayeen wadamadoodii dhaqankii gelinayeen ayaa muddo badan halkaa ka qaadatay laakiin waxaad oran kartaa mustaqbalka laftigoodu dab yar ma shidayaan meelaha laakiin ay iska kaashadaan waxaa ka mid ah markay noqoto in cod la bixiyo muslimiinta iyo yuhuuddu isku meel bay inta badan u footeeyeen foodkooduna waa cod labadaba waa liberal ayay u footeeyaan obama haddaad eegto 70% yuhuuddu way footeysay muslimkuna 80% ayuu u footay marka meelaha qaarna way iskaashadaan meelaha qaarna way laakiin inta badan arrimaha iska kaashadaan waxaa la odhan karaa soo maaha wixii halise ay kaga imanayso labada bulshaba tusaale ahaan qolyahan garabka midig siyaasadahooda ku fogaaday oo kale laakiin markay noqoto arrimaha kale caalamka iyo waxyaabaha dhacaya isku aragti kama aha soo maaha isku aragti kama aha laakiin waa inaad sii fahantaa marka hore waa inaad qeexdo waa ayo muslimka halkan markaad eegto 7% waa shiica 9% waxa weeyaan waa sunni muslims iyaga laftigooda muslimka wuu sii kala duwan yahay 60% waa Asian 30% waa African American marka waxa weeyaan markii muslimkii la isku wada qaado inta badan sidaas ma laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye muslimkii ugu dambeeyay ee cusba iyo dadka Israa'iilanka issue-ga markay noqoto global geopolitics isku mawcudanayaan haddaa taas eegto meelaha qaar way sii wada codayaan imika oo kale markay noqoto issue of Israel iyo issue of Palestine isku si uma wada arkaan laakiin issue-ga ka soo horjeeda nuclear-ka issue-ga humanitarian-ka refugee-ga waxyaabahaas oo dhan philanthropy-ka waxyaabahaas oo dhan yuhuuddu international qayb weyn ayay ka qaadataa marka meelo badan oo wali iska shabahan wuu jira laakiin waxa ka xoog badan intii media ee aad loo soo saaray ee ahayd ma garanaysaa yuhuuddu inta badan waxay ka soo jeedaa muslim cabdisalaam waxaan kugu darayaa 90% dadka halkan muslimiinta waxa keenay waxa u badan waa Christian iyo Yuhuud Lutheranka social service-ka Catholic Church-ka Presbyterian waxaasoo kaniisada ayaa Soomaalida keenay inaad la socoteen kale mooyaane soo dadka ugu horeeyay u dooda markaad waddanka timaado in la keeno waa dadka Yuhuudda iyo dadka Christianka marka xiriirka ka dhaxeeya runtii aad ayuu halkan u badan yahay laakiin inta badan ma maqalno maadaama aad Soomaalida soo qaatay Soomaalidu markay gudahooda sheekaysanayaan Mustafa waxaan filayaa inaad ka warhaysay waxay yiraahdaan annaga diintii islaamka iyo dhaqankii islaamka iyo cuntadii xalaash ahayn meel walba ka ridnay waddanka Mareykanka meelo aanay weligeed gaadhin ayaanu gaadhsiinay arrintaasi ma dhabbaa orda waxaa jira markaynu ku soo noqono Bertson Power amba muslimiinta quwadda dhaqaale leedahay wixii la oran jiray xalaal marketku waxa weeye ilaa 190 bilyan oo dollar xalaal marketka marka maaha kuma koobna uun hilibka qoro kuma koobna xalaal marketka waxa ku jira pharmaceutical dawooyinka oo kale inaan alcohol la gelin waa qayb ka mid ah fitamiinada oo kale in xalaal based noqoto waa qayb ka mid ah bangiyada oo kale wixii la oran jiray Islamic usury oo kale oo waa qayb ka mid muslimiinta mudaharaba musharaaka iyo ijaara waa 3 program oo iyaguna ka mid ah muslimiinta dhaqaalaheeda laakiin waxaan waanay laga horeeyay yuhuudda way soo martay oo usury anti finance way soo mareen iyagu inay ka saaraan xaaraanta dhaqaalaha xagga ganacsiga iyo bangiyada kosher iyagu xalaasha hilibka sida loo qalo yuhuudda way soo martay Presbyterian-ku way soo mareen marka quruumo hore Christian-ku wali imika ma cunaan hilibka xalaalka maalinta xadda hilibka xaaraanta marka way jireen dadkuna way soo mareen laakiin inagu meesha aynu Soomaalida ku keenay inaga laftigeena waxaanu soo kordhinay wax aad iyo aad u badan oo positive ah oo haday noqoto suuqa oo kale xagga xalaal marketka caanaha iibka
iyo waliba ta ugu weyn ee Soomaalidu keentay waxa weeye waa dadkii ugu horeeyay noqday visible muslim dad la arko iyagoo muslina Soomaalida ayaa ugu horeysay wadankan muslimiintu inta badan khamaar ma wada qaataan qof kastoo khamaar sitaana ma aha muslim lama oran kartid qof kastoo jeans sitaana ma aha gaal marka muslimiintu way kala duwantahay sida u labisato sida wax u cunaan sida alaabta u iibsadaan waa waxyaamaha aan ku darsnay wixii loo jeedo Islamic consumer behavior marka dadka muslimka qaar waxay iibsadaan gawaadhida qaaliga qaar brandkay jeceliyeen qaar alaab magaranaysa khamiis qura ku socdaan marka muslimkiiba ah aan si qura had qura loo wada eegi karin waxaas oo dhan waxaan ku darsnay wixii loo jeedo Islamic consumer market waxaana dictate gareyn karaysa Cabdisalaam waxa weeye suuqa tusaalaan ku siinay imika company-ga weyn ee Best Buy ee sameeya alaabta technology-ga iibiya wuxuu imika soo saaray qalab cusub oo muslimiinta ugu talagalay inaanay salaadu dhaafin in magaranaysa ay tukadaan xitaa shaqaalihiisa ku taran galay marka kambaniyada xitaa rabaa in muslimiintu helaan sidii aan mar hore ku dhawaajiyay McDonald wuxuu soo saaray imika sambusa xalaal uu geenayo suuqiisa oo iyaga laftigiisu ay iibinayaan waxa imika soo baxay wixii loo jeeday Samsung Cola kambaniyada maartay Coca-Cola iibiya marka kambani kasta wuxuu arkay imika suuqii Soomaaliduna suuqaas ayay kamid tahay iyaga laftigooda dab yar ma shidayaan waxaana lagu qiyaasay purchasing powerka Soomaalida $2 billion waana lacag aad u badan iyaga laftigooda markaad leedahay muuqaal ahaan waa dadkii ugu horeeyay la arko waxaan filayaa xagga labiskaad u jeedaa ma iyaga ugu horeeyay dumar xijaab qaatay iyo rag khamsaan sitoo suuqa mara markaad eegto Asiatica kale oo dhan Pakistan iyo Bangladeshka ayaa dhaqanka ay nala wadaagtay laakiin iyaga laftigoodu way kala qaybsan yihiin laakiin percentage-ka ugu weynaa ee mar qura soo wada galay ee mar qura la wada arkay ee dhaqan visible muslina watay Soomaalida ayaa ugu horeysay Soomaalidu laftigoodu haddaad eegto waxay la timi baahiyo ka gaara muslimiinta kale waxay dad cusub dad aan luqadda aqoonin dad culture ka yimi aan hore loo gumaysan dad ku faraxsan diintooda iyo qalbi wanaagooda taas ay iyagu markaa la yimaadeen oo ay runtii kaga madhadhaliyeen dhaqaale ahaan dawlad ahaan iyo system ahaan iyo deegaan ahaan iyo waliba siyaasad ahaanba marka runtii waxaad oran kartaa iyaga laftigooda mustaqbalkooda hadaanu kaba sii fiicnaan kuwii hore muslimka waa bright way Soomaalida markii aanu qiiminay iyaga meel gaar aanu ka qiiminay 80% waa dad shaqaysta 20% baa imika guri leh 10 sano ka bacdi 90% guryahooda yeelanayaan laakiin Cabdisalaam meelaha Soomaalidu aanay ciidaba ku gaadhin waa xagga tacliinta jaamacaddan qura imika Mareykanka halkan Minnesota ku taala sanadkii waxa ka baxay ilaa 1500 qof waxay kala isgooreen wixii la oran jiray minority educational gap farqi u dhaxeeya tacliinta dadka ajaanib dadka cad iyo dadka madow Soomaalida ayaa soo xidhay waayo raydka ay Soomaalidu kaga baxaysay iskuulka ayaa aad u cajiiba waxaad arkaysaa guryaha qaar hooyo agoon wadata 7 caruur oo 10 sano 15 sano luqadda garanayeen sida ku keentay ayaa maanta 7 ka baxayaan jaamacadaha marka Soomaalidu waxay noqotay runtii successful story ummad aad loo jeceliyo oo loogu farxo anigu waxaan ahaa dadkii ugu horeeyay la shaqeeyay Soomaalida muddo deeymka 15 sano ka hor state-ku mu aqoon waxa laga fakari jiray mustaqbalka sidee noqon doona ummadan laakiin maanta halkan waxaan kugu sheegayaa Cabdisalaam inay noqotay ummad guuleysatay ummad mustaqbal leh ummad aayaheedu yahay kamid ummadda Mareykanka waana ummad aad mustaqbal u leh oo wanaagsan way iyaga laftigooda laakiin dhinaca kale ma la oran karaa sawirka mid kala barbar socda oo ah in Soomaalidii ilgaare lagu eegayo in loo arko in ay noqon karaan dad halis ay ka iman karto khaasatan waxa lagu tilmaamo xagjirnimada kelmadda xagjirka haddaad eegto xagjirnimadu waxa weeye waa American historical system-kay ku jirta kama maqna bilowgii Mareykanka waxa lagu abuuray xagjirnimo markii hore Britishkan la dagaalanay British colony baynu ahay xagjirnimada dad Mareykan intay kaceen ka soo horjeestay waa tii la sameeyay wixii la oran jiray Tea Party Massachusetts Mareykanka ayaa diiday cashuurta bixiyaan adeecaan British ruleski dabadna hub bay qaateen hubka ugu weyn ee halka Mareykanka waxa weeye first arm waxa weeye waa statue-ga Mareykanka inuu qofku isdifaaco marka horta Mareykanku weligiiba kama maqnayn abaabulka maanta hadaba yahay abaabulin weeyo boqolaal group oo xagjira baa jira waxa jira neo-Nazism baa jira Waco Texas arrin ka dhacday baa jira conservatism badan baa jira qaar aan tahay muslimiin baa jira marka waxa weeye xagjirnimadan waa system-ka Mareykanka kolba indigenous group inuu soo baxo laakiin muddo ay qaadataa muddana way ku dhamaataa laakiin ummaddu aanay fahansanayn Cabdisalaam aan doonayaan ku dhawaajiya waxa weeye dhaqaalaha ugu weyn ee Mareykanka wuxuu ka yimaada waxa weeye waxaan la yiraahdo military war Mareykanku it has to be when dagaal uu ku jira waayo General Electric hadaad aragto
haddaad aragto Ford waxaasoo dhan waxay sameeyeen military equipment artillery Boeing waxaan hub oo dhan dhaqaalaha Mareykanku waa hub iibis weeye Mareykankuna ma noolaan karo haddaan adduunku iswada haysan Pentagon budgetka ugu weyn ayaa haysataa marka muslimkan isaga laftigiisa baa suuq u sii abuuray Mareykanka iyo shaqaalihiisii inay arrintan jirto halka laakiin dibtu ka jirta waxa weeyaan hay'ad kasta imika way balaaratay haddaad eegto security-ga wuu balaaray FBI-da way balaaratay Pentagon-ka way balaaratay marka dhaqaale badan ayaa inagu filan miiliyuhuna dhaqaalahaas ayay markaa magaranaysaa xogtiisa tabinaysa waad oran kartaa bariyo dhexdaas waxa bilaabmay caruur dhoofta oo de magaranaysaa wadamo isku soo qarxisa laakiin waa incident aan loo qaadan karin Soomaalidu dhame inay tahay magaranaysaa dad xaq jira waxa weeyaan su'aasha meesha taale waxa weeyaan muslimiinta aan eegnay muslimiintu sidee bay u arkaan Mareykankuna sidee u arkaa muslimiinta boqolkiiba 90 Cabdisalaam muslimiinta Mareykanka markii aanu ka qaadnay data waxay qeexeen wadanka lamada inaanu jirin wadamadoodana inaanay ku noqon doonin mustaqbalka maxaa keenay waxyaabaha keenay waxa kamid ah wadankan oo ka heleen freedom amba xorriyad cadaalad dhaqaale tacliin wadankan oo ay aamineen inaanu haba yaraatay qof kale aanu jirin markii 100 qof ay ku noqdaan wadamadii muslimka 100 qof waxay sheegeen inaan wadanka muslimka mar dambe ku noqon doonin ayay sheegeen sababaha ay u sheegeen waxay wadamadii muslimka in cadaalad ka jirin eexi ka jirta corruption ka jira waxay soo arkeen walaalkoodii muslimka oo ku dulman muslimkii waxay soo arkeen dhaqaalihii ummadaasi lahayd oil iyo resource oo ku soo noqonaya Mareykankii marka muslimiinta wadankan waa muslimiin wadankan aamintay oo aan laga lahayn oo fundamental American Muslims ah su'aashaas boqolkiiba 90 dadka muslimiinta saasay qaateen wadankan waa wadankayaga idna kama laha waana dareensan yihiin waana ka dhab maxaa marka la su'aalay dadkii Mareykanka boqolkiiba 90 waxay qaateen dadka muslimiinku inay yihiin dadka ugu wanaagsan ee ku noolaan kara Mareykan sabab Mareykanku saddex qodob ka eega wuxuu ka eega capacity collateral credibility iyo content maxay ka dhigantay qofkaasi dhaqaale ku filan ma soo saaray isaga reerkiisa muslimiintu waa dadka ugu sareeya capacity ma leeyahay tacliin iyo aqoon waa dadka ugu sareeya credibility ma leeyahay qof ma yahay character oo discipline leh ha dadka muslimiintu waa dadka kaliya buuxiyay marka dadka Mareykanka waxa ku sheegay waa dadka kaliya ku noolaan kara American dream marka waxyaabahaasna way jiraan Mustafa ugu dambeyntii maadaama sawirka quruxda badan la aad ka bixisay muslimiinta wadankan iyo sida guud ahaan looga arko haddana ismaan dhaaf baa jira sida labadeennuba aynu qiray dad fara badan oo kalena ay qirsan yihiin sidoo aragtaa mustaqbalka muslimiinta wadankan Mareykanka muslimiinta daatada aanu qaadnay waxa la qoondeeyay 250 muslimiintu sidee noqonaysa muslimiintu orda diinta muslimka ee number 1 noqonaysa Mareykanka 2050 waa diinta muslimka waxaanu eegnay diimaha oo dhan Catholiga Presbyterianka Lutheranka waxaas dhan waanu soo wadaegnay iyo ta muslimka diinta muslimka waa diinta ugu badan ee la qaato dadka Mareykanka ay qaataan waa diinta ugu yar ee dadkii qaatana ay ka baxaan markii loo eego diimaha kale inta badan dadku way ka baxaan ma garanaysa waxa kale oo imanaya oo la furay imika migrationkii ugu weynaa ee dadka muslimiinka imika Syriankii Afghanistaankii Soomaalidii waa dadka ugu badan ee imanaya imika dadka Mareykanka marka diintii muslimku kor ayuu kacaysa 2050 kana waxa noqonaysa diinta Mareykanka ugu weyn waxa noqon doontaa diinta muslimka waana fact dhaba Mareykanka uu ogyahay waxa inagu xigta waa diinta Catholiga iyaga waxa ka baxa boqolkiiba 15 ayaa sanadkii ka baxa teenina boqolkiiba 25 ayaa kor ugu dhaka marka wadankan mustaqbalkiisu waa wadan muslim marka muslimiintina waa kala jaad oo tii California deganay tii Los Angeles deganay Cabdisalaam way kala duwan yihiin waxyaabaha aan doonay imika inaan ku sheego imika waxa jira magaalo la yiraahdo Maka oo ku taala Mareykanka oo dadku aqooneen magaalada la yiraahdo Michigan ee Dearborn ku taala waa magaalada ugu muslimiinta badan leh waxa imika laga furay dukaankii ugu weyn ee Walmart oo completely haya xalaal market marka kambaniyadeenni iyo deegaankeena uu suurto galaya waxa iyadana mudan oo aad iyo aad aan uga shaqeynay 10 sano ugu dambeeyay xaqii bangiyada imika Dow Jones iyo haddaad eegto kambaniyada ugu weyn stock optionska amba mutual fundka amba liquidity-ga wixii de magaranaysa finance ka shaqeynayo dhan waxay soo saareen stock muslina kambani kasta wuxuu sameeyay imika inuu sameeyo lacag lagu talagalay dadka muslimiinta inay adduunka galiyaan oo lagu gadin hub lagu iibin khamri gambling amba ku jirin dhilooyin iyo wixii prostitution aha waxaas oo dhan waxa ka noqotay bangiyada muslimka marka waxa weeyaan muslimiintii sector kasta way galeen ugu muhiimsan ee Mareykanku arkaya Mareykanku ka aqli badan cid kasta wuxuu arkaya 1.5 billion muslimiina
1.5 billion muslimiin oo global market ah noqon doonta 15 years 2.5 billion people noqonaya haddaanu suuqooda gacanta ku dhigin maraykanku ma sii jiri karo sida kaliya ugu dhigi karana waa inuu noqdo multicultural market waa inuu galaa muslimiintuna waa inay qayb ka mid ah noqota marka muslimiintan issue ku arka kuma arka adduunka kale oo dhan waxaanu ka aragnaa muslimiinta weyn ee ku jirta iminka maraykanka militariga waa boqolkiiba 2 waxaa laga furay masaajido military base ayaa wuxuu leeyahay maanta masaajido oo kitchenkii aad ka qaadanaysa cunto xalaal iyo magaranaysa wixii diintaada keenayay sidii aan kuu sheegay waana jecel inaad soo siyaarato Hawaii muslimiinta ugu badan ee Hawaii degan waa military officers hadday noqoto naval base hadday noqoto anigu masaajidan kula tukatay marka waxa weeye muslimiinta sidaynu aragnay Mareykanku waxa weeye waa deeply rooted waxaanu ka mid nahay society-ga wadanka runtiina wadankan kaga kalsoonahay maanta kan ma jirto marka muslimiinta khibradeeduna waa taas Mustafa Maxamed Mustafa Martin aad iyo aad baad mahadsantahay intaasi waxa ku dhan barnaamijkan oo marti weeygu ahaa aqoon-yahanka Mustafa Maxamed oo ku magac dheer Mustafa Martin oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka